runtii waxyaalaha ayaan in yar meelaha qaarkood comment yar ka bixinaya aniga oo runtii sida u hadleen saddexdii mas'uul ee halkaan ka hadlay mid walba aad iyo aad ugu faraxsan saddex qof oo qiimo leena ay yihiin sida uu sheegay macallimu oo runtii nin khabiir ah inkastuu warbaahinta oo marmar is challenge garayno uu ururadeeda madax u yahay haddana qof wadani ah oo runtii aad iyo aad u tura uu ah waxaan ku ammaanayaa inuu yidhi warbaahinta adeega bulshadu markii la dhaho waxaa muhiim noqonaya danaha bulshada hore halkan waxaa idinka sheegay laba channel oo TV inaan leenahay oo Somali National TV Channel 1 iyo Channel 2 Channel 2 actually intaa uu sheegu sameeyaa anigu waxaan dhageystay isaga oo leh dawladda ayaa gabadh askariyada oo musha ku daahday u dirtay diyaarad ay tinki baar dheer inay ahayd si halka loo keeno dhaqtar loo keeno mar dambe waxaan ka dhageystay madaxweynaha oo waxa qabtay marka labada channel aan leenahay already halka ilbaxnimada uu sheegay mar horaan gaadhay labada channel aan leenahay midna wuxuu priority-ga siiyaa wararka dawladda midna wararka bulshada maybe uu cusub yahay wali dad badan inaan dhageysan afartiisa shantiisa headline ugu horeeyo saacad kastana warba ku jira warka saacada ku jira wuxuu ka sheekaynaya waxa arrimaha bulshada madaxda iyo waxay qabatay haday wax muhiim ah qabteen oo bulshada xiriira then they come fast laakiin wuxuu priority-ga siiyaa wararka arrimaha bulshada waliba waxa noogu jirtaa in aanu warka caruurta ku darno oo waxaan raadinaynay gabadh yar iyo wiil yar oo qaab wariye u tababaran oo warka caruurta iyo waxyaalaha ay ku farxaan warka caruurta oo kale ka akhriya TV-ga Somali National TV 2 marka aad iyo aad baad u mahadsantahay meesha u soconaa taas weey warbaahintan dawladda iskale dadka Soomaalida iskale lacagtay ku shaqeyso public laga keenay dan public dantooda inay fuliso saas ay tahay marka aad iyo aad baan macallim u amaanaya runtii oo qof dareen wanaagsan sharcigu uma baahna inay ajaanib warqad ka soo qoraan annaka diyaar halkaan ay ku yeernay waxaan kale aan sunnimaano aan iskas garayno wixiina ka khaldan aan ka saxno den madaxweynaha in warqad lagu dhibo ma waa in ay idinku noo timaadaan oo annaka oban baan idinahay sharcigii mar hore wayna kaan ku lagu jikaraynay wax kasta oo xadgudub ku ah xorriyadda qowlka sida qodob dastuuri sheegayo sida sharcigu sheegayo information inuu helo wariyuhu access na helo annaka diyaar ah marka waxba qoraaqa soo qorinina noo imaado annaka idila galayna discussion-kii oo diyaaradii ah oo shaqadayadu tahay inaanu idii adeegno waxa aad ku qanacsatiin shaqadiinu ku fiicnaanayso qarankuna ku fiicnaanayna inay kala shaqeyno waajibaadkayga weey marka taasna halkaasaan ka dhahaya sida uu Sakariya walaalkay sheegay runtii nin cod furan oo waxa uu aaminsan yahay sheega doorashada annaku waxaanu jeclayn inay noqoto dawladahan dhamaan hay'adaha dawladda madaxweynaha inay noqoto shacabku inay dadka u codeeyaan taqwada inay siyaasiyiintu ka soo qaataan shacabka laakiin sidaad arkayseen madaxweynuhu sheegay waxay u gaadhay in dalku haddana crisis kale oo kala qoqobnaan galo iyo la tanaasulo marka eedaanu leenahay Sakariya iyo madaxweynuhu leeyahay xukuumaddu leedahay ra'iisul wasaaruhu leeyahay ma laha systemka aynu hadda ku jirno iyo wali inaynu dib u heshiisiin ku jirno hore u soconno ayaa keenay in dib loo noqdo oo meel ku dhow halkii 2016 lagu noqdo maaha siyaasadda dawladda maaha hay'adaha dawladda oo dhan wixii ay aaminsanayeen ama jeclaayeen laakiin waa wixii laga fursan waayay sidii madaxweynuhu uu sheegay marka taasna halkaasaan kaga baxaya laakiin waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inay u hagaagaan dawladdii 8 February dhalatay wixii ugu fiicnaaya aan xasuustay qabatay waxaan aaminsanahay madaxweynuhu taageeradii 8 February inuu maanta ka badan yahay wax walba dawladnimada inkastoo aanan dhaliilayn dawladihii hore inay wax qolaba dhagax soo saaraysay system baa maanta jira system ciidan oo aan dib u soo noqonayno argagixisada ka adag baa jira system maaliyadeed oo adduunku wada amaanay oo wadamadii adduunka ee aan burburin ee Afrika in badan aan kaga hormarsanahay jira
system adeeg bulsho oo bilowday oo kan ka mid yahay jira oo look this kan waa adeeg bulsho weyn ayaa jira system siyaasadeed oo tanaasul laha jiro aanu tanaasuleysa afartaasaan ku dhisanahay afartaa waaxoodaan ku dhisanahay afartaba waxa laga sameeyay waxa la qiyaasi karay marka Sakariyana qayb buu ka yahay baarlamaanku ka mid yahay uu nagala qayb qaatay taas oo dhan aad u mahadsanta waxaan sheegayaa aan rabaa in halka sheego public broadcasting waa in process warbaahinta ay leeyihiin maamul goboleedyadu waa public broadcasting maanta laga bilaabo anay hoos yimaada hadee marmar waa iska muranna laakiin muran sharci ku fadhiya ma adduunka sharci anigu halka sharci baan ku fadhiyaa ninka waxaan kaga duwanahay in warqad la igu qoro sharci leeysi aan kaga duwanahay laakiin bini aadan isoo kale aan ahay Soomaali baan ahay same marka sharcigaas oo aan u ahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaan kaga dhigay public broadcasting sharciga warbaahinta kaga dhigay golayaashu ansixiyeen way maqlayaan waxba muran tari maayo warbaahinta maamul goboleedyada iyo tan qarankuwa waa warbaahin dawladeed ku shaqeysa cashuurta laga ururiyo shacabka Soomaaliyeed waana public broadcasting laakiin process aan galayna gudiyaan u dhisayna gabdhahan ku jiraan wakiilo ku leeyihiin ururada warbaahinta ay wakiilo ku leeyihiin talo ku socota iyo dano ay ku socota marka inaan taasna ku daro oo aan ahayn tan uun aan ahayn ee maamul goboleedyaduna ku jiraan ayaan runtii rabaa inaan xuso walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaanu ku soo dhaweynaynaa qof kasta oo Soomaaliya oo caaqil ah oo wadani ah oo dadkiisu inuu wada jiro oo guuleysto raba inay halkaan taladooda u furantahay ururada siyaasadda siyaasiyiinta waaweyn ee hadday doonaan aan urur ku jirin ururada bulshada qaybihii aan sheegay ay ku jiraan kuwa baahiyaha gaarka qaba halkaan danahooda ka sheegan karaan ay hob bari inay tahay maalinta dhimirka goormay ahay 10 bisha shalayto waxa la igala kulmay agaasimayaasha maalinta dhimirka barnaamijyada laga sameeyo oo aan ku dhiiri gelinayo warbaahinta gaarka loo leeyahay runtii meelaha aan dhihi karo dawladda Soomaaliya way ka gaabisay waxa kamid ah dadka dhimirka qaba inay wax loo qabto waxa la dhaho adeega bulshada ka hadlayo social service qofka ugu liita aan aaminsanahay adeeg bulsho in loo sameeyo qofka waalan waayo inta kale oo dhan way ismaamuli kartaa at least waxa laga yaabaa inaan dalku lahayn meel 2 mitir ah oo maamulku og yahay oo ka war hayo oo dadka lagu hayo oo lagu daryeelo diyadal waa kan wasiir kaamirada ninna danta ninna diiday ما طلبابيه وكو waxaan horta Soomaaliya Cameroon nin maanta waa gudoomiyaha thank you waa idinka gudbin waxaan doonayaa in warbaahintuna coverage weyn ka samayso dad waxa jira mutadawiciina oo meelaha qaar kood qof dhibaataysan oo sirg lagu xidhay soo arka oo gudbiyo marmarka qaar kood contribution kaanu ka qayb qaadanay caawinay ururada actually bulshaduna inay u advocate gareeyaan way dadkaas sababtoo ah qofka dhibaatada ugu badan qaba kaas waa qof baa laga yaabaa lugta inuu xanuunayso qof baa laga yaabaa inuu jiis yahay qof baa laga yaabaa inuu illa yahay laakiin still waa fiican marka ka loo barbar marka maalintaas oo sharci la kulmeen dareen gaar ah igu haysa ayaan runtii waxyaalaha dawladdu ay u socoto inay wax ka qabato u taagan tahay weeye oo maanta fursadan aan warbaahinta gaarka loo leeyahay ka codsanayo inay coverage ka sameeyaan waliba meelaha qaar kood sida loola macaamilo qofka xanuunsan Soomaaliya dhaqan ahaan ma fiicna radii la doono ciyaalka shiida qofka dawladda inay u shaqeyso la rabaa kaas waayo dalkan wax ku leeyahay kamiyirka qaba lacagtiisu wax ku leeyahay aqoontiisu wax ku leeyahay hadaan marka wax looga tarinin very sorry wax aad u xun waa marka waxaan uga jeedaa waa inaynu isku xidhanaa dalkeena iyo dadkeeda dhibkooda ururada leh waxa iga keenay baahiyaha gaarka markii aan xusay ayaan xasuustay waa in dadka baahiyaha gaarka leh qofka xoog leh maskaxda leh u baahan adeegiisu inuu ka gaaro adduunkana dawladuhu kaas ay ka qaadaan xoog leh kan baahanaysiya dawladdu taas waa dawlad marka laakiin miidiyuhu waa nagu baraaruji karaa hadduu maanta yiraahdo Soomaali governmentigu ama dawladda Soomaaliya adeegii la rabay ma bixin
waayo ninkaasay magaalada ka xirayn weyse xanuunsan you have all the right inaad tiraahdo maybe waa ku baraarugana annaka waxaasaan nahaga dowladda waxa haga aragtiyaha dhaliisha wax dhisaysaa waxbay hagtaa marka maalintaasina way ku soo socotaa coverage ka samaysaan dadka baahiyaha gaarka qaba kuwa kale dhibaataysan wax kasto aad aragtaan waana aaminsanahay dad badan oo warbaahinta ku jira inay ka shaqeeyaan oo waliba noo soo bandhigaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaanu ka rajaynaynaa qaybaha bulshada halkan fadhiya ururada siyaasaddu ay ku jiraan haweenka Soomaaliyeed ku jiro dhalinyaradu ku jirto warbaahintu ku jirto inay noo yimaadaan khibradda ay hayaan noo keenaan public broadcasting sida u shaqeyso sida ugu wanaagsan u shaqeey karto nala dhisaan systemkaas aanu maanta bilownay dhismihiisa heer qaran iyo heer maamul goboleed aad u mahadsantihiin